waata daawadayaal wili waxaad la socotaan wararka telefishinka Somali Cable oo idinkaga imaanaya xafiiska wararka telefishinka uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wili warar kale dhowr ayaa inoo soo socda balse markan dhowrkii habeen ee la soo dhaafay magaalooyin kamid ah dalka Koonfur Afrika waxa ka dhacay rabshado iyo waliba dilal loo geysanayay ganacsatada iyo dadka Soomaalida ee halkaas ku dhaqan hadaba waxa qadka imika si toos ah ugu jira wariyaha iyaga telefishinka Somali Cable ee magaalada Johannesburg Abdullahi Yarisow Abdullahi bal marka hore hadii aad imaqasho waxaad warbixin kooban naga siisaa guud ahaan dhowrkii habeen ee la soo dhaafay goobahii iyo waliba rabshadaha meelahii ay ka dhaceen iyo waliba dilalkii iyo boobkii Soomaalida loo geystay adigoo noo soo koobaya warbixinta waa mahadsantahay feedka guud ahaanba hadii aan kaaga warramo xaaladda dalka Koonfur Afrika waxa ka soo cusboonaaday maalmahan dambe siiba maalinimadii shalay boob loo geysanaya ganacsatada ajaanibta oo ay Soomaalidu qayb ka tahay ilaa dhowr dukaan oo ku yaala magaalada Durban magaala xabaadka Durban ee gobolka KwaZulu Natal ayaa lagu boobay goob ganacsi oo ay leeyihiin ajaanibta gaar ahaan Soomaalida ilaa xalay magaaladaasi waxa ka jira cabsi xooggan oo ku aadan in mar kale ay saameyn ku yeelato rabshadaha lagu boobay goobaha ganacsiga Soomaalida oo ay ka mid tahay arintan ayaa ka dambeysay fiidko kadib markii ganacsatada u dhashay dalka Koonfur Afrika bishii la soo dhaafay dhowr shirar kala duwan ay magaaladaasi Durban ay ku qabsadeen ayadoona ay warmartiyeed kaga soo saareen shirarkoodu waxa ay ku sheegeen in ganacsatada ay Soomaalidu ay ka mid tahay iyo ajaanibtaba ay la wareegeen dakhliga dalka Koonfur Afrika isla markaana ay si wada jir ah kaga soo horjeesan doonaan oo ay beegsan doonaan waxaanay ku hanjabeen hadii aysan xirin goobahooda ganacsiga aysan iskaga soo guurin guud ahaanba deegaanada hoos yimaada magaalada Durban ay bilaabi doonaan rabshado oo ay ku beegsan doonaan Soomaalida waxa jira dhanka kale dhibaatooyin loo geysanayo Soomaalida iyadoona muwaadininkii ugu dambeysay dalka Koonfur Afrika lagu dilay maalinimadii shalay muwaadinkaasi oo aan wali magaciisa aan helin ayaa waxa weerarka dilka geystay oo goobtiisa ganacsiga ku soo weeraray Allah u naxariistay koox burcad Koonfur Afrikaana oo had iyo jeer looga bartay inay dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed ee ku ganacsada deegaanada tuulooyinka wararka dambe ayaanu idinku soo gudbinaynaa fiidka waxyaabaha ku soo kordhay iyo cabsida ka jirta magaalada Durban deegaanada hoos yimaada oo ay tuulooyinka oo ay Soomaalidu ku ganacsato waatahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa wariyaha iyaga magaalada Johannesburg ee telefishinka Somali Cable Abdullahi Yarisow oo inooga waramayay rabshado iyo waliba dilal dhowrkii habeen ee la soo dhaafay ka dhacay magaalooyin kamid ah dalka Koonfur Afrika oo ay Soomaalida markaasi ku dhaqan yihiin